qisadan oo ahayd mid cajiib ah ayaa waxa ay ka dhacday maanta barqadii agagaarka suuqa Bulxube gaar ahaan wadada isku xigta isgoosyada Soobe iyo Danwadaagaha waxa qisadan ay ku bilaabatay nin ayaa waxa uu soo dhigtay gaari uu watay meel ku dhow suuqa Bulxube kadib markii shidalaan uu ka noqday deetana waa uu ka dhaqaaqay arrintaasi ayaa waxay keentay shaki in laga boqo in qarax uu isku bedelo gaarigaasi waxa halkaas yimid durbadiiba ciidamada ku san dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo xiray dhammaan wadada una diiday gaadiidka inay isticmaalaan sida aad dareemaysaan wadada cidlada imika ka muuqanaysa kadibna waxa la ogaaday in gaarigaasi wax qarax ay saareen markii darawalkii kafeynay hadda xaaladu waa isbedeshay sida aad ka dareemaysaan waxa bilowday gaadiidkii inay si caadi u shaqeeyaan dad badanna waa ay ku soo xameen wadada si kastoo ay ahaato arrintan ayaa waxay muujinaysaa amni darrada Muqdisho ku sii kordhaysa iyo qarxida ka dhacay iyo sida dadka ay uga baqayaan Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud Soomaali TV Muqdisho